Jaamacadda Hamar University oo ka mid ah jaamacadaha ugu horeeya dalka xagga tayada aqoonta ayaa ardayda kulliyadda caafimaadka waaxda daawada iyo qalliinka waaxda kalkaaliyaha iyo waaxda shaybaarka ee jaamacadda Hamar University waxay adeegyo caafimaad u sameeyeen qoysas danyar ah oo ku nool xerooyinka barakacyaasha ee ku yaala tabeelaha duleedka gobolka Banaadir. Qoysaskan ayaa loo sameeyay baaritaanno caafimaad iyo daweyn dhammaystiran, waxaana qoysaskan ay ku jireen dad aad ula liitay xanuuno kala duwan oo ay la dhibaataysnaayeen muddo dheer. Qoysaskan ayaa ka soo barakacay gobollada qaar ee dalka iyagoo ay saameeyeen abaaraha dalka ka jira, fatahaadaha iyo macluusha deegaano ka mid ah dalka ka jirta. Qoysaskan ayaa u mahad celiyay hormuudka kulliyadda caafimaadka iyo ardaydiisa adeegyada caafimaad iyo baaritaannada ay ka heleen. Jaamacadda Hamar University oo ka mid ah jaamacadaha ugu horeeya xagga tayada aqoonta ayaa mar walba qayb ka ah garab istaagga dadka danta yar, xag waxbarasho iyo xag caafimaadba. Jaamacadda ayaana adeegyo kala duwan gaarsiisa dad la tabaalaysan xaaladaha kala duwan ee ka jira deegaano ka mid ah gobollada dalka.